dakhliga ama miisaaniyadda Soomaaliya iyo midka Somaliland ayaa warbixin muhiim ah laga soo saaray. boqolkiiba 67 Soomaaliya deeqaha caalamiga ah ayay ku tiirsan tahay. Tanna waa sababta keentay Soomaaliya inay xuurtaysato oo ay istiraado xuurtayso dhaqaalaha Jamhuuriyadda Somaliland. Somaliland boqolkiiba 92 gudaheeda wixii ka soo baxa ayay Somaliland ku tiirsan tahay halka boqolkiiba 8 deeqa caalami ay yihiin. waa difference iyo waliba sidoo kale gaab aad u weyn. Soomaaliya markaa maadaama oo deeqdii Mareykanku bixin jiray USAID-ka ee la siin jirayna meesha ay ka baxday oo ay isku dhalaashay waxa ay damacday in lacagta Somaliland ay xurtaysto. Soomaaliya lacagtana ay doonayso inay urursato ee Jamhuuriyadda Somaliland maanta ay rabto inay marna hawada isku qaado marna isku qaado badaha wax kale maaha. waa lacagtii Mareykanka oo la jaray iyo boqolkiiba 67 dhaqaalaha beesha caalamka ka yimaada oo Soomaaliya ku tiirsanayd. adduunku wuxuu leeyahay markaa wadan boqolkiiba 67 adduunka ma jira baa lagu leeyahay wadan boqolkiiba 67 deeq caalami ku tiirsan. waxaan aan idin kala hadlayaa waa wax recorded oo imika dad baadhan heli kartaan. subxaan allah.